waxaan ku soo gabagabaynayaa sheekh axmed hadaata dhigta waxa uu igu taabtay shiribkii aad marmar soo qaadi jirtay ha ilaabin uu yidhi shiribka aniga meel ma igu xiraysan yahay marka meel ma igu jiraa marka ana sheekh axmed aad u jeclaa runtii maxaa yeelay waa makaaniga dhamo mashruucan isku xidha khayr allah siiyo maaragtay howl badan buu qabtaa marka anoo taas ka jawaabaya marka codsiga nin weyn codsigiisa lama wada tuuri kare waxaan soo qaadanayaa hadda ka horna inaan qaarkii joogaan umaleynaa sanadkii labaad oon imid waa 2011 waa soo qaatay maxaa yeelay munaasabada shiribada aan maqlay midka ugu dhow kaas waaye marka munaasabadana waa in la soo qabtaa wuxuu nin caami ah ninkaas anigu waa bartay waxay ahaaday 60kii iyo 8 doorashada ahayd anoo yaroo meel tuula jooga baadiye jooga ayaa shirib isku dhacdhacaya niman seeja u taalo oo kuraas ku tartamaya oo ninba nin u suxmaynayo kursiga waa iska taqaanaa Soomaalidu isku bilaysneed ayuu shirib oday hirbaadiye oo iska turturaya saas u ridaaya ayaan dhageystay cunug yarna waa ahay adigu 10 sano wax saasan jiraan maleynaa 10 sano waxa dhacday marka wuxuu leeyahay saddex walxaato minku waxa u jeeda xataa ma aqaan munaasabada xataa u keena ma aqaan laakiin shiribka waa qabtay hadda markaan duqoobana waa igu soo maaxayba waa igu soo duxay waa la yaabanahay maxaa yeelay ninku aqoonna ma lahayn wuxuu sheegayeen waa wax usuusha islaamka waa يعني لبا كميدا horta waa ku rakaban tahay midka saddexaad waa iska war caadi wuxuu leeyahay saddex walxaato minku taal saddexa loogu miiriya miirka lagu soo celiyaa waa hadii miir ka tago saddexdaas lagu soo celi karaa miirka abul aynayn shiribka caawa ugu horeeysan maleena inuu maqlo laakiin Allah yaciinahu maxaan sameeynaa waa isku dhaw yihiin waa fahmi doontaa marka wuxuu leeyahay marka saddex walxaato minku taal saddexa loogu miiriya miirka lagu soo celiyaa macallimiin hadday murmaan minhaajka loogu miiriya waa cajiib minhaajka macnaha waa faynta aayadii way mogta aayadii bay waafaqsanta minhaajka loola noqdaa way waxaa la yidhaha walbaniin masaladiisa daliilkiisa meeshaan soo dhigo waa midda maanta culimada laga leeyahay birta iyo midida saawirta alaabaa la soo wataa وروح أنت ما لديك كتابك إلا سلب حوي كتابك إلهي أنقل بحنا هذا هو المرجع وحوير مركز تيام دي بوسوع الله وحوير معلمين هذا مرمان منهاج قالوا ميريا مدعيا مدعى علينا مركتا لوغو ميريا شيخ فوق هذه وجهته مدعي مدعى عليه وعربي وايبا المدعي والمدعى عليه انك دعوه قبي كي لقى قبي حديث كي وافق مركز البينة على من ادعى واليمين على من أنكر قفك وحشاجنا هنا من خاطئ على جربا هدوا هنا قفك اللي وحشاجنا على جربا إنه دارته هدوا داروا إنه كل سمعنا ولا حكومة قالوا أكو حكومة مركز تيبي المدعين وافقسنتا مدعيا مدعى علينا مركتا لوغو ميريا لبدا صرت قاعدة سوق كان مدان سدحات وحن ولا نوسك دقن كدونك تجربة كان مالنا لكن النص أي وافقسنتا وقار موجانيجا ما نرجع لنا شغل لأنه قبلوا مركز عقرت وكحنا قانا وين قديم ماشي وكان قبل ما جوان سوما مركوا فسحنا سوما وحو يري مريدي كما سيرتانا مريد وقبله هواي كما سيرتانا مهركا لوغو ميريا waxaan u qaatay inuu ka wado waxaan u qaatay furiinka lamado in la hore laga furo gabadha lama rabo laakiin haddii aad albaabada dhan ka xirmaan xoogo ma seertiro walaalay waa ku toosinaa ma dulmi iyo dabdaradooda xagga ka soo qabo يعني مارت لبدي حكمها الله وحيو وين خدوا شغبي فبعثوا حكم هدي الباب نسوي حرمان داتر هذا بينك وقد ما هرت وبسكوت بتونية وأجر سميرسين مهر كاج ما يقوها يعني هو حقوق المنكيق وبدين يعني وعي كل هذا ضي عوال وهاي إسكسي حب البريان صورتنا مركا وعن كسو قبقبينا يا مركا وعن مهمة مركا إن من بدن الله إلاليو مرجعيا الله إلاليو مسلم نمضان نقول له بإنت سوق بينا وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته